colaad noqo wacan oo wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkii madasha qurbajooga barnaamijkan madasha qurbajooga oo idinka yimaada magaalada London studioga telefishinka qaranka Somaliland ee London toddobaadkan iyo barnaamijka madasha qurbajooga waxa ku soo qaadan doona Xasan Xaaji Maxamed oo ku magac dheer Xasan Warabacade Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Somaliland ee qurbajooga hase ahaatee dalkiina aan ka maqnayn inta badan waqtigiisa ku qaata waxa uu ka mid yahay dhalinyarada iyagoo sida weyn ugu hawlan arrimaha la xidhiidha dhinaca ciyaaraha sida kubadda cagta kubadda kolayga iyo ciyaaraha kale ee la halmaala Xasan waxa uu ku sugan yahay studioga markuu hore waxa uu ku soo dhaweynayaa studiogan barnaamijkan madasha qurbajooga iyo telefishinka qaranka ee London Xasan aad baan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta guddigiin shaqaalaha daatiin telefishinka qaranka ee Somaliland waaxda in qaybta in London oo kaalin weyn runtii bulshada kaga jira aad baan idinku mahadcelinayaa soo dhaweyntan iyo Xasan aad baad u mahadsantahay adigoo ka mid ah dadkii ka yimid magaalada Oslo ee dalka Norway si ay uga qayb galaan mudaharaadkii ka dhacay magaalada London ee lagu taageeray Somaliland socdaalka aad ku timid markuu hore London ka soo asuma waxaan waliba anigu way iga soo horeeyeen dadkii kale ee ka qayb galayay anigu Soomaaliyeed arbacada ee 3 subaxii ayaan imid oo waqtiba maan helin toos baan u tagay markaad magaalada soo gashay airportka toos waxaad u tagtay toos oo calaamada waa tahay maxaad ku qiyaasi lahayd inuu ka yar hadallo jawigii aad la kulantay maalintii mudaharaadka salaan wallahi aniga naftaydii ma taqaana ma filin dad inta tira leeg inay meesha isku yimaadaan runtii Abdullaahi waxaan filayay mudaharaadadii hore ka qayb galay sidii 18 May sanadkii hore oo kale in tira leeg marka tan waxay igu noqotay naftaydii meel aan cagaha dhulka dhigo ama aan qof aan isdhaafnaba aan waayay xataa markay madaxdu yimaadeen meel aad ka qooransato xataa inaad weydo marka tan waxay ahayd wax aan oran karo ku qiyaasi karo mucjiso iyo dadka reer Somaliland inay yihiin dad aad u jecel wadakooda dalka Norway ee degantiin magaalada Oslo waxaad naga warantay jaaliyadu ku yihiin marka loo eego dhinaca dadka degan halka runtii jaaliyada Somaliland ee Norway waa jaaliyadaha ugu wanaagsan marka loo eego dalalka Yurub ama qurbahaba waa jaaliyadaha isku xidhan jaaliyadahan meel qura ama ruq qura iyo arrin kasta oo yimaada si wada jira ayaan u qabanaa mana lihin wax khilaaf anagu hadii marka loo eego jaaliyadaha kale Yurub waxaan nahay anagu waan ma farbadni bad leedahay yani ururada badni waan badanahay laakiin waxaan leenahay meel qura maamul quran u leenahay oo aan marka taagu wacan waxa ugu wacan markii hore odayadii naga soo horeeyay iyo dadkii markii asaaska ahaa ayaa noo dhigay ururka jaaliyada Somaliland Norway marka saldhigii hore oo baan ku wada deysano taasa keentay marka inaan marnaba aan yeelan taqaan aad baad maasantahay hadaynu soo noqono dhinaca dhalinyarada iyo ciyaaraha oo talagugu ogyahay oo arrimaha kale bulshada siyaasadda iyo waxyaabo aan lagu ogeyn waxaad ka warantaa maxaad ku qiyaasi lahayd dhinaca kubadda cagta iyo ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliland halkay marayso wallahi horta meel fiican bay marayaan dhalinyaradu waa dhalinyaro aad sportiga ugu aad u jecel haddii noqonayd kubadda cagta orodada kubadda kolayga iyo wixii la halmaala runtii meel kasta oo aad tagtana aad bay u jecel yihiin khaasatan kubadda cagta waxaad ka garan kartaa ciyaarihii dhawaan dhamaaday ee gobolada ay ka dhacay gobolka Togdheer sida live-ka aad ugu soo tabinaysay amba loo soo tabinayay sida dadku iyo dhalinyaraduba ay u xiiseynayeen marka waxaan oran karaa waxay doonayaan in halka laga siiyaan baqaado wax liiga ka sii wanaagsan loo sameeyo laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay yihiin dad Ilaahay muhib u siiyay hibo caalamkana kala qayb gali kara waxa jira dad iyagu dhalinyaro ah oo agoomanimo ku soo koray oo bulshadan kubadda cagta dhalinyaradan ciyaaraysa aad moodid inay ka yara nasiib marka loo eego aanay saaw nasiib badnayn oo waalidkii labada dhanba aanu joogin kuwa iyaga maxaad u qabataan aad ka hadashaa runtii waxa jira in haddaan Hargeysa kale ka soo qaato xarunta agoomaha waa xarumaha aan anigu inta badan ku xiranahay ama dhalinyarada ku jirta oo lagu qiyaaso ilaa 300 400 oo imakana ay marwaasha qalib ay ka tahay muxuu ahaa in maaraya ay ka tahay waxa weeye
meelaha ugu muhiimsan ee in wax la gashado u baahan iyagana inta badan waxaan anigu isku howlaa inay iyagu noqdaan kuwa la taargetgareeyo oo la siiyo macaawanooyinka xagga sportska qalabka hadday noqon lahayd kabaha hadday noqon lahayd maalmaha ciidaha ah oo laga farxiyo hadday noqon lahayd iyo qalab tartamada ay gelayaan bilaha ramadaanka oo laga taakulayo way sidoo kale waxa jira kooxo dhalinyaro ah oo kala duwan oo kubad ku ciyaara tusaale waxaynu soo qaadanaynaa Hargeysa oo kale oo caasimadii waxaynu hadda jeer sanadkii maqalaa kooxii ciyaarayay oo marqula gobol u kala safanaya oo sanadkii dhacdo noqoto mid sanadkii marqula ay dhalinyaradu sarkaan maxay u dhici waayeen ciyaaro dhalinyaradu ay leeyihiin oo matalan taxana oo sanadkii 2-3 jeer dhaca ama ciyaar sanadka lafteeda dhan soconaysa oo is arageedu badan yahay oo kooxaha magaalooyinka ama degmooyinka oo kala horta laba arrin baan u kala qaadayaa mid waxa weeye sida ay ku wanaagsan tahay in la yeelo midna tan imika siyaabaha imika jira waxa weeye in sanadkii oo dhan aan helin tartamo jadwalaysan oo مثلا ay jadwalku u noqdo jadwal joogto ah sanadkii مثلا ciyaaraha degmooyinka oo la sameeyo ciyaaraha dugsiyada ama dugsiyada sare oo la sameeyo ama dugsiyada hoose baa noqdaan ciyaaraha dugsiyada baan idhaahdo ciyaaraha jaamacadaha iyo ciyaaraha naadiyada heerka koowaad oo markaa gobol walba laga abaabuliyo taas structurekeedii waxay u baahan tahay weli ma hirgel maanaan arag balse waxaa jira tartamo kale oo sida mataqaanaa ay sameeyaan ama shirkadaha waaweyn ama dahabshiil ha noqdo ama telesom ha noqoto ay tartamo sidaas oo kala dhigaan ay kubadda cagta ama koobab ay dhigaan taas ayaa markaa waxay keentaa in ciyaarihii gobolada markaa loo dhaqaaqo iyadoo aan muddaba aan muddooyinkii u dambeeyey sanadkan mooye 4 sano hore aan la qaban wixii ka dambeeyey 2007 lama qaban marka waxay keenaysaa taasi مثلا sidaad xulkii gobolka ku heli lahayd inay noqoto inay adkaato inaanay mataqaranaysaa aanay dheelitirnayn مثلا waxaa jira mar haddaanad qaban ciyaarihii degmooyinka aanad qaban marka gobolku wuxuu ka kooban yahay degmooyin waxaa la doonayaa inaad xuquuqda ciyaartooyga aad siiso uu helo nin kasta waa waxa la yiraahdaa sportigu waa cadaalad weyn markaan doonaya inaan qabto ciyaaraha gobolkayga aan doonaya inaan xulka sameeyo waa inaan ka bilaabaa asaaskii waa inaan degmooyinkii u qabtaa gobolkaas ka kooban degmooyinka marka maxay hortaaganaysaa Usmaan waxa weeye waxa مثلا ciyaaraha gobolada waxa loo sameeyaa markiiba dhaqso la sameeyo مثلا iyadoo bil ka hadhay 2 bil un baa la announce gareynaya ciyaaraha gobolada la qabanaya daayir baan waxa noqonaysaa in markaa figures la yaqaano la magacaabo laakiin waxaan doonaynaa in la ballaariyo taas xulista lafteeda la soo xulo ciyaaraha gobolada kooxaha u ciyaaraya ama ciyaartooyada u ciyaaraya taa lafteeda jir waxa laga muujiyaa in dhaliilo ku jiraan طبعا maxaa dhaliilaha dhaliyay ama keenayba hadii مثلا gobolada gobol baan idhaahdo gobolka awdal maroodi jeex haduu la kuray مثلا maroodi jeex oo kale sanadkan waxa mathalay 9 naadi ciyaaraha heer koowaad marka 9 naadi waad garan kartaa waa 9 naadi oo naadi walba 22 ciyaartooy ka kooban yahay marka la yiraahdo intaas laga soo dhaxulayaa oo laga soo dhaxulayaa waxay noqonaysaa intaas oo ciyaartooy inaanay meesha haddana ay ka baxaan 22 ciyaartooy baa la soo xulay gara oo maxaa markaa noqonaysaa intaas oo dhalinyaro oo badani inay iyaguna markaa sameeyaan ee ka hadhay inay raadsadaan meel kale oo ciyaaraan marka Hargeysa kale inuu soo noqono Hargeysa markii gobolkan hawd wal muuqatay wax qarsoon ma ahayn cid u ciyaaraysa gobolka hawd soo dhintay Hargeysa degan tahay ba maxaa shuruudaha ku dhigi waayay in aanu qofku hayn qof gobolka naftiisa ka baxsan inuu safto qof gobolkiiba ka baxsan loo soo xulay Abdullaah waxa weeye waan ku yiri shuruucda marka hore la sameeyay tartanka lagu galayo ayaan loo dajin nin gobol jooga inaan gobolka loo ciyaari karin deganaansho lagu shuruuday kuma jirin shuruucda noocaas ay ma jirin waana ku sheego dhalinyaradani waxay u baahan yihiin inay ciyaaraan sanadkii oo dhan ninkan dhalinyarada wuxuu u baahan yahay meel uu isku tijaabiyo صح marka hadii laga xidho oo mawduuca la keeno oo isbaarada la dhigo ma helayo marka meel kale uu ka ciyaaro aniga ku 9 kooxood oo marood jeex ah ama gobolka Hargeysa ah deer 22 ciyaartooy baa laga qaatay
intii kale Ayaa deetana intii gobol. awoodi kartaa hawd baa ka samaysantay gabile baa qaarkood ka samaysmeen meel kale mid kale ka ciyaaray Way. marka Janiskii buu doonaya ilaa waa meesha qura uu doonaya ninkii Way. isku muujiyo way taataynu kaga gudubnaan soo qaadano ciyaarahan waxa lagu sheegaa nooca doonaadan kubadda cagta basketball ama kubadda kolayga wixii la xiriira waa kuwa ka baxsan siyaasadda طبعا haddii siyaasad ay ka baxsan yihiin maxaa hortaagan in kooxaha Somaliland ka jira ay caalamka uga qayb galaan inta qaarada waxaan kaga ka horreysiinaya kaalay kuwa wadamada u safanaya gartay waxaan kaga horreysiinaya waxa weeye horta marka ugu horreysa inaan structure-ka ciyaaraha sideenaba aynu dhisnaa way horta waxa ka horeeya maxay waa qaabkan u samaysanay way taasaa muhiim way sportsku ma leh siyaasadda kuma ahan in lagu linki karayo maaha lagu xidho waxaa muhiima markaa inay siyaasadda iyo sportsku ay kala baxsan yihiin way maalan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha wasaaradda ugu weyn intaasoo dhalinyaro hoos timaado iyo federationskeedu federationska markaa ay kubadda cagta oo kolayga orodada waxaan oo dhan waa federations marka waa inay lahaadaan qaab wada shaqayneed ay markaa wasaaraddii iyo federationska ay leeyihiin qaabkaa wada shaqayneed waa inay shuruuc ku dhisantay haddii kale waxa weeye qof waliba power aanu lahayn buu markaa ayuu gelinaya awood aanu lahayn baa soo baxaysa oo siyaabaha imika aan ka aragno saxaafadda ee in badan imika aan ka aragnay laysku jawaabayo haddaa aan lahaan lahayn structure-ka aan kuu sheegayo marka waxaad leedahay waxa ka maqan meesha qaabkii iyo hanaankii wada shaqaynayd ee ka dhaxayn lahayd federationska iyo wasaaradda marka hadday taasi jirin ma taasaa hortaagan markaa in ciyaartooy Somaliland ka socda matalan magaalada Hargeysa oo matalan rahna waa ta ugu ciyaartooyga badan ama ciyaaraha badan inay magaalo kale oo wadan kale la soo saftaan oo ay la ciyaaraan ciyaar saaxiibtimo kale ay ma odhanaya taasaa hortaagan waxa weeye saan ku sheegay federationsku matalan federation kubadda cagta waa federation ugu weyn ururada kubadda cagta waa in uu isagu yeelan karo inuu xiriirkii dibadda samayn karo xiriirka dibadda مثلا waa inuu tagi karo Djibouti oo xiriir sporti oo tartan sporti la soo dhigan karo waa inuu Ethiopia tagi karo ama East Central Africa u booqan karo oo ay karaan mataqaana waxaan nahay ciyaaraha مثلا ciyaarihii gobolada u dambeeyo kale waa inaad soo casuuntaa oo tiraadisa inaad adigu abuurto oo aad tusto taasada awood weyn marka taa iyo shaqada waxay tahay federationska ururada kubadda cagta kubadda cagta kubadda kolayga hada waa shaqadii laga doonayay in ay iyagu noqdaan kuwa laftooda ma jiraan waa jiraan waana elected la doortay oo ay kooxuhu doorteen waxaan soo noqonayaa adiga shakhsiyan xasan in badan waxa aad ku dhex jirtaa arrimahan kubadda cagta iyo ciyaaraha iyo dhalinyarada marar badan ood koob geesaa jirta Somaliland ood ka keentay Yurub oo aad geesi dadku waxay isweydiinayaan xasan maxaa ugu jira horta anigu waa hobby in badan baa ayaa su-aashaa la weydiiyey in badan baa igu xisaabtantay imika anoo laga yaabaa inaanan dhowr bilood iska joogaan waxaan qabtaaba jirin ba garanaysaa maalintaan cagta geliyo in badan baa igu xisaabtamaysa oo baahiyaha jira sportiga jira ayaa kalifaya anigu ma sameeyo tartamo waaweyn oo laga qayb galo laakiin anigu waxaan sameeyaa kooxaha midayo aan isleeyahay kooxdaasi qalab baa ka dhiman inaan inta itaalkeeya aan qalab u iibiyo ama saaxiibaday contribution la kaashado oo aan markaa isku dayo inaan amba dresskii u iibiyo ama kabii u iibiyo ama koobabkii lagu ciyaaraya tartan Ramadaan ha noqdo ama wax kale ha noqdo aan ku contribute gareeyo xabadda kubaddana 22 ciyaartooy ayaad kula saaxiibaysaa Cabdilaahi 14 sanana waan waday imise saaxiiban leeyahay marka adiga wax faa'iido oo aan ahayn inaad xiriir yeelato ma jirmaa waa ii hobby waa ka hesho waa ii hobby waa fan aan jeclahay oo aan keenay oo ku soo barbaaray waana waxaan doonayo inaan ku dhex jiro oo aniga ilaaliyay marka iga hore bay soo ilaaliyay waxa jira sidoo kale Somaliland inagoo soo noqon doona tii dibadda ee Afrika iyo ciyaartooyga la ciyaaray waxa bilaabmay ilaa intii wasiirkan cusub uu qabsaday oo kale waxa muuqday waliba ciyaarihii gobolada waxa ma say in dib ay soo baraarugeen waxa sidoo kale socda stadiumada ama goobihii lagu ciyaarayay oo dib loo dhisayo kan Hargeysa lacag baa loo guraa waanu maqalaa Yurub iyo laga hadlay lacag loo guraya si loo dhiso stadiumka ama garoonka kubadda cagta Hargeysa xagee maraya kaas horta aad baad u mahadsantahay waa su'aal fiican garoonka Hargeysa stadium
muddo 3 sano laga joogo annaga dhalinyaro badan oo reer Norway oo ku koray Norway ku koray baa tagay wadanka waxay arkeen meesha ay ku ciyaarayaan dhalinyaradu inay aad u adag yahay ama lagu jabayo ama garoonku aad u adag yahay garoonkuna dayac badan ka muuqdo taa waxay keeneen markaa inay isweydiiyaan iyagoo ila kaashanaya aniga inay isweydiiyaan yiraahdaan maxaynu ka tari karnaa dabetana waxaanu sameynay fakar mataqaanaa inaanu anagu jaabkayga iska aruurino iyo cidii kale reer Norway markaa wax ku darsan karta jaaliyada kamida oo aanu sameynay inaanu tartamada 18 May aanu dhigno steady to May aanu ka faa'iideysano aanu kooxaha kubadda cagta u qabano ee wadanka Norway lacagta contribution ama fee aanu qaadaynana inaanu dhigno ilaa ay makana 2 sano u dambeeyay waanu qabanay waxaanu ku guulaysanay inaanu wuxuun hayno dabeeta waxa dhacday inuu Dahabshiil koob ku qabtay garoonka Hargeysa Stadium Cabdirashiid Dahabshiil oo nin dhalinyarada runtii u soo jeeda ah garoonkiina u dayactir uu yiri ana ku sameynaya ama shirkadda ku sameynaysa waxa ogaalkaya in $110,000 uu gelinayay kharash inta laagi maxay ku raatay aan ka dhaxgalo kharash inta laagi oo meel ku baxayo oo kubad cago kubad lagu yeerinayo malmeelisa inay ku haboon tahay in meel kale la geliyo aad bay igu anigu waxaan u maleeyahay kharash yar inay tahay waa faraguudkood baan u maleeyahay markaan run aan sheego maxaa yeelay garoonku markaad eegto garoon muddo dheer jiray way garoon dudumay oo dhalinyarada ku ciyaartay albaab walba ka boodayaan suuliyadu way dhamaadeen taar male hadii ciyaar waa yani markaad aragto yani wadnaxaysa ama sawirada laga soo qaaday dilaa wadnaxaysa marka waxa keenay inuu Cabdirashiid inuu sportigii dhex galo isla markaana shirkadda magaceedii oo dhalinyarada xageedii uu ka muujiyo marka uu mudan tahay in lacag inta la geliyo oo dhalinyarada u baahi jirta meed haddii aan wadanka ama wadan walba ha noqday wad garanaysaa wadankan aynu joogno 60 milyan ama 62 milyan haddii aan sportiga aan lagu jeedi lahayn wad garanaysaa maalintii qoraheed wixii ka dhacay Tottenham wixii ka dhacay London haddaan sportiga wadan walba oo aan sportska qaybta doonaha noqday aan ummadu jeedin siyaasaddu ma lagu soo jeedaya oo go'do siyaasaddu ba nin walba ku jeedaya marka wixii waa in mujtamacu kala jeeda waa tan lacagtan Dahabshiil uu bixiyay Ilaahay khayr siiyo waan ku mahad celinayna taa iyo mid ka badanna aan waa rajeynayna sax hadii garoomadan ay dhismaan imika garoonkan berbero kala la dhisayo laftiisa sidoo u qiyaasi lahayd bal horta garoonka berbero wada xisoo horta garoonka berbera indhahaygan ku soo arkay maayarka Cabdalla anigu aan hore u aqoonin garoonka markaan soo arkay ayaan doontay markaa waan u mahbaliyay haddana waan u hambaliyeenayaa saxaafadan u marinayaa waxaan leeyahay hambaliyo xalina waan daawanayay halku maraya garoonku waxaan leeyahay inuu ka sii qurux badnaado oo waliba doogiina la dhigo ayaan rajeynaynaa waan ugu hambaliyeenaynaa waxaan noqon doontaa in sanadaha soo socda East Central Africa in lagu qabto hadaynu ka mid noqono garoonkaasi waa garoon ay mujtamacu iyo xukuumaddu samaysay maayarka iyo barasaabka iyo cidii kale qabatana oo ugu hambaliyeenaa waliba keligii maahane inta kale gobolada kalena way tartamayaan waa in sidaas oo kale ay ku daydaan mar haddii dhalinyarada ku dhex jirto arrimahan ciyaaraha iyo waxyaabaha ku mashquulaan dadka qaarkiina waxa barbar dhigaan in dhalinyaradu wadanka ka gurmaysay ka baxayso oo tahriib iyo meelaha loo baxayo idinku markaad qiyaastaan dadkan baxayay way baxayaan ma tira la buunbuuninaya mise tira jirta iyo dhibaato jirta marka aan runta ku sheego waa tira jirta mar bay hakad gashay waana la gelin karaa haddaan sidaan kuu sheego dhalinyaradu aan waxaan garan karaa intii ciyaartooyga ku dhimatay imakaan garan karaa iyagu badda ku dhintay 2007 kabtankii xulka gobolka Awdal ee finalka tagi wuxuu ku dhintay badda yani waan tirin karaa 1 iyo 2 ma doonayo inaan dadkii xusuus ku soo celiyo dhalinyarada sportiga in badan baa jirtay qaar badan baa ka haajiray oo jaamacadaha ka soo baxay oo haajiray hadda waxa la doonayaa sida loo yareyn karo waa sportiska oo dhalinyarada sidii burcaynu ka arkayna oo loo abuuro in tartamo joogto ah oo ninka dhalinyarada uu oran karo saxaafadda maanta adaa ku soo baxay oo ninkii gool dhaliska badneed baatay maanta adiga soo baxay dhinaca shaqo abuurka la fahmay shaqo abuurka taanifteedu waa xigmadda labaad ee la doonayo in waxaan ka hadlayaa haddaan xataa ardayga marka hore aan lagu jeedin sportska oo aanay ka bilaabmin
waxbarashada nafteeda Way. xiisadii isboortiga aan la soo celin waxaan u malaynayaa inay tirtirayso. inkastoonay barnaamijkan aanay dee joogin wasaaradii qaabilsaneed wax ka weydiin lahayn oo inaga maqan yihin laakiin haddaan si loo eego arrintan miyaad odhan lahayd waa mid dowladda iyo xukuumadda ama wasaaradda ay khusaysay ay ka warhayso miyaad is odhan lahayd waxaan u malaynayaa jawaabtaa inkastoon iyaga dhinaca cid kastoo mas-uulihii waxa uu qabanayo iyo waxa laga doonayo uu garanaya way qof kastoo mas-uulihina blanka uu samaysto iyo sida wuxuu ku hirgelinayo ayay ku xidhantay Way. balse waxaa la doonayaa in laga sameeyo workshopyo ah sidaynu u horumari karnaa sida dhalinyarada looga joojin karaa in socodka amba tahriibka sidee isboortiga dalka loo stable garayn karaa garoomada loo dhisi karaa tartamo joogto ah marka 5 bilood oo tartana uu socdo 2 bilood wixii ka dambeeyna mid kala bilaabmayo waxaan u maleeyaa inaanay qofkuba helinin meel uu ku fakaro wax kale markaynu ka nimaadno ciyaarahan gobolada dhaca had iyo goraale ee ay leedahay sanadkii mar la qabtay sanadkan iminka aynu ku jirno ugu horreeyey maxay u dhici laayihiin ciyaaro su-aashii hore aan ku celiyay in ay taxnaadaan oo dhallinyarada iyo gobolada iyo degmada sarkaan waxay ku xidhan tahay hadba dadka mas-uuliyiinta ee ilaahay saaray markaa sida qorshaha ugu dejiyaan way su-aasha mar hore aan ku weydiin male laakiin haddana waxaan ku noqonaa dhinacii samafalka waxaad ka warantaa waxaa jira ururkan xaruntiisu London tahay ama website kale SDWO ama usoo taagan Somaliland Democracy Watch ama ururka xafidaha dimuqraadiyadda Somaliland wuxuu leeyahay laan samafala oo had iyo goolaale dad lacag u qaybisaan goorma ururkaas bilaabmay والله إلا إيو مدلبة كونية لا لبض كونية تضبطي وشقيني. واي. ها فكر كيسة كان. فكر كواحد كان قدوميها إن أوروركا نقولين عبد الشيخاش وأن رمتي آد وتشبان. إن وحبضنا قبتي رمتي أنا ولا لبض سنة ودم بيا نقيب وكاها. ونقولي بقى حاجة هرجيس آد ويسو شقي. ضد بدن أو تاكلين وباهن وآد مقرنسا وإلترن أو أقوم oo caruur yar yar dad intee leeg markaad wax gaarsiisanad xasan waxa jira dad badan ba dad ilaa imika dad intee leeg ayaad gaarsiiseen lacagtan aad soo urursaan ee ururkiinan oo ay gaadhay wala horta dad badan baa la gaarsiiyay mesela markii ugu dambeysay bilihii September iyo October waxay ahayd ilaa August xagga raashinka ayaa dad badan oo Faransiiska degan baa soo ayaa soo diray marka lacagtu raashin baa la geliyay raashin baa ku qaybinay sida marka qaarkii waxa jira lacag sideedii oo cad oo bixsan dollar taasi waa dadka shakhsiyaadka ay soo dalbaan ay yiraahdaan qofka naga gaarsiiya مثلا ilmaha yar ee madaxa biyaha kaga jiro kale gaarsiiya 200 soo diray sideeda loo geeyay waxa jira dad isla hayadiinan ama website-kan SDW oo kale uu soo dhajiyo muuqaalkooga oo si nooc min baaq oo kala marka dad xulaa oo soo xushaan mise waa cidii marka soo gaadhay waxa jira muxuu ahaa 2 qof ilaa 3 qof oo dadka markay yiraahdaan iska dhiban eega dadana sawir ka qaada dadana soo gudbiya marka wala qiimeeyo qofkii la soo gelin kara ee dadka wax loo weydiin karo haduu yahay qof aad u jilcan mesela ilmo yar oo lugihii oo dhan dhaana wax ka arkeen gubtay dhagana la maskaxdana waxa uga dhimay qofkaas oo kale qofka haya waad garan kartaa way marka waa mid dadka dhan u banaan way mid kale xafiiska madaxtooyada waan ku xiranno wada shaqeyn fiican inta badan dadkuna waxay arkaan iyadoo hay'addu hargeysa gudaheedu wax ku bixinaysa miyad gobolada inta kale gaarsiisaan wadan runtii capacity-ga aanu haysanaa iska yar oo 2 qof dadka ama sawirka soo qaadaya ama lagu hagaajinayo waxaan doonaynaa hadii dadku ay waxtar badan soo gashadaan samafalka SDWO meel kasta ha noqdo qofka inaan gaarsiino insha Allah aan u soo noqono dhinaca ciyaaraha mar dhaweyd carabku waxaad ku dhufatay bariga iyo bartamaha Afrika waxa jira ciyaaro magaalooyinka caasimadaha oo la ciyaaro qabanqaabadoodii fooday nagu soo leedahay waxaan warkana ku hayaa inaad bal isku dayayseen intiinan ciyaaraha Somaliland ku hawlan ee dibadaha joogta ee qurbaha joogta in balaad Somaliland koox ka kaxaysan magaca caasimadda Hargeysa ku ciyaaraya Somaliland oo ka qayb galisaan arintaasi la hadda ma suurta gashay horta sanadkii hore ahayd team kamida teamka caasimadda magaca caasimadda ku ciyaaraya Somaliland oo koob tartanka waxa la yiraahdaa tartanka bariga iyo bartamaha caasimadaha bariga iyo bartamaha marka waa kubadda kolayga gabdhaha iyo wiilalba laakiin anagu waxaan dalbanay gabdhaha wiilashan dalbanay sanadkii hore marka
kooxdii tegi lahayd oo wax walba loo diyaariyo nasiib darro qaladaad xagga farsamada ah baa dhacay laakiin casuumadii casuumad la mid ah imika sanadka waa Nairobi sanadka hore ahayd imika waa Kampala casuumadiina waan diyaarsanay waan gudbinay wafdiga dad mid oo kamidana waa u sheegnay waxaan rajaynaynaa inay ay Soomaaliland sanadkan ay markii ugu horeysay taariikhda marka taa ka hadlayso waa caasimadaha magaalooyinka bariga iyo bartamaha Afrika dabcan markayadu Soomaaliland ay ka qayb galaysaa Soomaaliland waa caasimadeena Hargeysa ay tagaysaa way marka ma la ogol yahay in astaamo qaran oo Soomaaliland la sito dabcan waxaad sidanaysaa wax kasta tuutaagi calankii baad ka dhiganaysaa kubadahaagii calankii baad ka dhiganaysaa dad taageerayaashaadii baad jooga marka waa qayb kamida waxyaabaha aynu doonayno dhinaca sportiga inaynu ku halganno oo ku muujino adduunka waxyaabaha kamid ah si kooban hadaad aan ku soo gabagabeeyo su'aashan markaad ka qiyaas qaadato muddada dheer ee 10 sano ku dhawaama ka badan ee ku soo jirta ciyaaraha iyo waxyaabaha la xiriira halkay ciyaaraha iyo dhalinyaradu iyo xiriirkan wasaaradda iyo hay'adahan matama kooxahan qabanqaabiye ciyaaruhu meeshay marayaan maxaad ku qiyaasi lahayd iyo ta mustaqbalka dad saadaysan labadaba qiyaasaya waxa weeye waxay marayaan mararka qaar waxay marayaan isfahanka la doonayo in lagu wada shaqeeyo inay totally aanay habbooneyn mararka qaar khaasatan marka meediyaha aad akhrido waxyaabaha lagu aanu ka akhrisano inaanay annaga aan raalli ka ahayn waxaan doonaynaa in laga shaqeeyo wada shaqeyn waxa maqan wada shaqeyn ka dhaxaysa xiriidhada iyo wasaaradda waa inay jirtaa qodobadii lagu wada shaqeynayay oo aan shuruucdii lagu wada shaqeynay oo aan qolana qola ku xadgudbay federationsku waxa ilaalinayo muratigareynayo wasaaraduna waxa weeye inay federationsku horyaalada waa la doortay waa naadiyada doortay federationska in marka la siiyo xuquuqdoodii iyaguna ay lahaayeen waa la doortay iyaguna ay ilaaliyaan monitorinka ay wasaaradda monitorgareynayso haddii kale isku dhaxyaacba imanaya in ay wasaaraddu nolosha ka eegto dabcan way aad iyo aad maasantay xasan aad baan kugu mahadnaq inaad soo booqato aad maasantay mahadsanid daawadayaal barnaamijkii madasha qurba joogga toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay xasan wararabacde oo ka mid ah dadka iyagu sida weyn ugu hawlan arrimaha dhalinyarada ee Soomaaliland kana mid ah dhalinyaradii hore u ciyaari jiray kubadaha oo dabcan still aan weli aan ku tilmaamay inuu dhalinyarada yahay ninkastoo isagoo laga yaabo isku tilmaamo dhalinyarada hadda lagu tilmaamo raqeeyo tiim ay dhahdaan oo aan arkayay isagoo ciyaaraya kubad dadkii ay wada ciyaarayaan kooxo barnaamijkii madasha qurba joogga intaas ku kooban yahay toddobaadkan intaan dib u kulmi doono waa anigu Cabdullaahi Maxamed Cali iyo farsamayaqaanka barnaamijkan oo ah Maxamuud Xadhigle intaan dib u kulmi doono waxaan ilaa intaan sidaas iyo nabadda iyo naxariista ee badhamaantiinba korkiina haato nabadgelyo